iyadoo lagu gudi jiro xilli Ramadaan dagaalna lagu jiro ka hortagga caabuqa COVID-19 waxaa maanta magaalada Bandera laga daahfuray barnaamij lagu taakulaynayo qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaanada kala duwan ee ismaamulka Mandera. barnaamijkan oo ah mid ugu horeeyay ay dawladda daahfurtay tan intii la sheegay coronavirus ayaa maanta si rasmi ah xarig ugu jaray barsaabka ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Roba. dawladda county-ga Mandera maanta waxaan u dirnay shicibka ilaa 10,000 oo qoys dadka ugu liito ugu dhaxnool waxaan u dirnay cunto 693 tan oo cunto ah oo 450 tan ay tahay bariis 150 tan ay tahay digir 93 tan ay tahay saliid cuntada lagu karsado. arinta waxaan ugu talagalnay 10,000 oo qoys oo aan baaritaan ku sameynayeen dadka aad iyo aad ugu liita county-ga in lagu caawiyo cunto nooca 3 bilood oo soo socoto hadda tan maanta u dirnay ugu horeyso laba goor oo kalena loo diri doono bisha 5 iyo bisha 6 Gaavanaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in uu sii socon doono barnaamijkan muddo 3 bilood si loo garab istaago qoysaska danyarta ah. insha Allah taala dadaal kalo dheerina waan codsanay oo iskaashiga dawlad goboleedka Mandera iyo dawladda dhexe waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheedii in meeydi caawimaad ziyaadan helno haddaan helnana aan ku sii kordhino qoysyaal kale oo sida kuwa hadda 10,000 aad u liidanin laakiin hasi ahaatee ayagana caawimaad u baahan insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa inay taasna noo suurta gasho. ugu dambeyn mas'uuliyiinta ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka Mandera in ay qaataan talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka si loo joojiyo faafitaanka COVID-19. Maxamed Eki Ibrahim